ugu dambeyntiina Cali Qalfoof ayaa dhulka lagu riday. wiilkan yar waxaa lagu magacaabay Cabdi Dhagoole. waxa uu gurigiisa kula nool yahay aabihii oo Dhagoole ah. maalin maalmaha ka mid ah ayuu magaalada aaday si uu u soo adeegto, maadaama uu gurigoogu magaalada ka fogaa. waxa uu socdaba waxa uu soo gaadhay kayn uu ku nool yahay askarigaas oo ka tirsanaan jiray ciidamada dawladda oo dagaal ku dhagabeelay. askarigan magaciisa haddii aan baro waxaa la yiraahdaa Suma Jeeste. waxa uu ahaa askari halyey ah oo marka uu cadowga dagaalka kaga hor yimaado aan soo jeesan, sidaa darteed ayaa loogu bixiyay Suma Jeeste. laakiin nasiib darro, dagaaladii uu galay dagaal ka mid ah ayuu ku dhagabeelay. imika waxa uu iskaga nool yahay kaynta keligii, dawladdiina saasay ku ilowday. Cabdi Dhagoole markii uu arkay askarigii ayaa cabsi gashay, dabadeetna dib ayuu iskaga cararay. ninkanna waxaa la yiraahdaa Cali Qalfoof. waa nin qalqaali ah oo askariga uun xaasida. markastoo askarigu wax ugaarsanayo ayuunbuu xaasidaa, shaqadiisuna intaa uun weeyaan. askarigii ayaa ku baraarugay wiilkii yaraa, dabadeetna waxay noqotay nin iyo orodkii iyo ninka roon baa reerka u hadhi. askariguna aad ayuu u gaajaysnaa. xaasidkii Cali Qalfoof oo markii hore u taagnaa inuu saaxiibkii xaasido ayaa ku baraarugay is-eryadkii labada nin ay is-eryanayeen. dabadeetna dagaalkii ayuu ku soo biiray. waxa la is-eryadaba ninkii Cali Qalfoof askarigii ayuu hor istaagay. dabadeetna askarigii iyo halkaa waxay isku laayeen ninkii Cali Qalfoof. wiilkii yaraana fursadii ayuu ka faa'iideysto, meeshii ayuu iskaga cararay. halkaasna waxaa ka dhacay dagaal la iskaga hor yimiday oo aan waxba la iskula reeban oo Cali Qalfoof iyo askariga islaayeen. ugu dambeyntiina Cali Qalfoof ayaa dhulka lagu riday. dagaalkaasina waxaa ku guuleystay askarigii. odaygan waxaa lagu magacaabaa Cali Dhagoole. waa Cabdi Dhagoole aabihii. waxa uu sugayaa inta wiilkiisa ka soo noqonaya magaalada, isaga oo ka welwelsan sida uu dadka u fahmi doono inankiisu. markuu waqtigii xilli dambe habeena noqday ayuu wadada soo raacay si uu wiilkiisa u soo doono. laakiin nasiib darro waxaa ka hor yimday ninkii Cabdi oo iska cararaya isagoona wax adeegaba wadin. dabadeedna waxa uga waramay wixii soo qabsaday. odaygii Cali Dhagoole oo yaaban iyo wiilkiisii Cabdi Dhagoole oo naxsan ayaa isku raacay gurigoogii iyagoona aysan waxay cunaan habeenkaas. askarigii Suma Jeeste markii uu ka guuleystay odayga Cali Qalfoof ayuu wadada soo cararay si uu soo doono wiilkii yaraa, maadaama uu aad u gaajaysnaa uu u baahan yahay hilibka wiilka yar. laakiinse nasiib darro, ninkii Cali Qalfoof ahaa intuu ciidda iska soo baabiyey ayuu soo daba tuurtay askarigii si uu u xaasido. askarigii oo ciilaysan iyo ninkii Cali Qalfoof ahaa ayaa mar kale dagaal iskala hor yimiday. ninkan Cali Qalfoof ma quusanayo, askarigana uu gaajoonayo way ka dhan tahayba. kulliba mar hadda halkii la soo gaadho waad ku mahadsan tahay daawashadaada. subscribe saar channelka, videogan like saar. waad mahadsan tahay saaxiib.